markana dhegaystayaal waa barnaamijkii waxbarashada waxaa soo jeedinaya Daawud Aweys. waxaan ahay waadiga dugsiyada waxaan ahay wanada macalinka waxaan ahay waadiga dugsiyada waxaan ahay wanada macalinka. barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa waxbarashada xeryaha qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya, balse aan ku bilowno deegaanka Qorax ee gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia. waxaa halkaas laga hirgeliyey mashruuca waxbarashada ee Qoraxay oo magaalada Qabridahare ka wada dadaal lagu horumarinayo tayada waxbarashada, isagoo mashruucaasi fuliyey howlo lagu tayanayo horumarinta waxbarashada ee magaalada Qabridahare. maamulaha mashruucan waxbarashada Qoraxay waa Diiriye Islaan oo hadda ka soo laabtay magaalada Qabridahare. Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayuu nooga warramay howlaha mashruucan. hay-adan ma aha mid bedel u ah iskuullada waxbarashada wadanka gacanta waxaa ku haysa dowladda ismaamulka Soomaalida. hase yeeshee annaga waxaa weye waa supplementary oo kaalinkii annaga ma bedelin, laakiin wixii shacab ahaan ama qurbajoogka ha noqote ama gudaha ha noqotee wixii kaalidii annaga aan ku biirin karayno weye doorka nagu. ma aha inaan institution kale hadda ka hor ma aha institution kale oo gooni ah oo waxbarasho inaan ka abuurno meesha ma ahayn ee ka jirta inaan garab taagno intaan kulayno oo doorka yani dowladana door ba inaan shacabka doorka dhigi bal inaan wax ka geysano iyo ahaa hadafkeedu. marka taas ayayna ahayd. waxaa laga bilaabay marxalad badan bay soo martay oo kolba heer bay ahayd oo ka bilaabatay in khalabayntii waxbarashadii kuraatidii iyo wixii lagu fadhiisanayey anaga laakiin ka shacab ahaan wixii taageero aan u geysan karayno ayaan ahayd ujeedada inaan ku biirnay. kolbaas arkayno shacab ahaan inaan ku biirno. marxalad badanna waa lasoo maray oo igu horreysay tii sidaa la socoteen qaybtii ugu horreysay oo dhinacii fadhiye kuraastii iyo miisaskii iyo biyogelin iyo waxyaaba saas oo kale ayaan markale ku bilownay. marxaladii labaad waxay ahayd in marka annagana bal macalimiin tayale maadaama macalimiinta tayadana ay gobol ku yaraayeen inaanu uga soo qorro gobolada sare oo wasaaraddu ay shaqaalayso annagana gurna halkaa usinasar ay ku tagaan gobolka. marxaladii hadda waxa gobolkii xaggii macalimiintii uu ka soo ugu daboolay intii badnayd kii ayaa joojinay. hadda waxaan u gudbaynaa weji kale oo kaalmo ayaan hadda saddexdan sane hadda soo socota 2011 sida barnaamijka shaqo noogu jirta ayaanu hadda wejiga aan saarayna oo noogu jirta qorshaha oo ka duwan tii hore. sida gobolka way dhamaystiran tahay dhammaan waxyaabihii loo baahnay waxbarashada asaasiga u ahaa oo ah macalimiintii iyo iskuuladii iyo kuraasidii miisaskii oo dhan way wada yaalaan. marxaladda hadda shayga muhiimka ee u baahan in muhiimadda la saaro waa tayeynta iyo in loo gudbo in marxalad kale oo horey loogu maray waxbarashada dadka iyo wacyigelina in la gala weeyaan waxa ugu horeeya. iyo waxyaaba raroo ka dhiman oo annagaas leenahay wixii aan markaan u aragnay qaybtii dowladda ka dhimanta inaan dhamaystira. guud ahaan waxbarashadu way ka dhiman tahay, ardadana aad bay u badan tahay, macalimiintana inta ugu badan waa la daboolay. ardada imise weeyaan iskuulaadka Qabridahare subaxii kalaasyada gasha ama fasalada gasha? wadarta waa 10,000 ay kor dhaafaan ardada fasalada gasha Qabridahare mid dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga sare. idinka marka ka mashruuc ahaan marka laga soo tago dowlad deegaanka Soomaalida waxtar intee la egay mashruucan ku leedahay? dowlad deegaanka Soomaalida mashruucan haba yaraatee wax tara ay ku leedahay ma jirto oo kan waxa weeye waa shacabka dibadda iyo gudaha hadda u jeedsanay. shacab ahaan annaga kaalinta aan ku biirin karno waxbarashadii wadanka iyo gobolka horumarintiisii gaar ahaan way mid aan u taaganahay. marka maamul ahaan iskaashi amooye wax dhaqaalaha oo gooniya oo xagga ismaamulka dowladda Soomaalida aan ka helno ma jiraan. idinka sidaad waxay isaga gurtaan ka jaaliyad ahaan tusaale ahaan qofkii reer Qoraxay ah ama reer Qabridahare qurbaha ku dhaqan emasuu mashruucan ku kordhiyaa oo lacag qaab dhismeed ayaan leenahay oo ku baahsan caalamka oo dhan oo min Australia laga soo bilaabo ilaa iyo Sydney lagu tago, Oslo laga soo bilaabo ilaa Koonfur Afrika la tago. waxaa ka dhisan 18 deegaan ayaa loo qaabeysan yahay. 18kaasu 5 waa 5 dhaqan galay oo bixiya. qayb walbana waxaa ku qoran dhaqaale xadidan oo iyadoo la tixgelinaya hadba dadka meesha joogay dhaqaalahooda loo kala qeybiyo ayaa loogu qoray. 3
deegaanna way cusub yihiin hadda aanu dadkii aanu ku jira inaan kicino gudaha 12 deegaan ayaanu u qaybsannahay oo 3 ka mid ay yihiin gudaha oo kala ah qabdahare oo gobolka Quraya xaruntiisa iyo jijyo madaxa deegaanka ah iyo adsaba oo caasimadii wadanka ah inta Quraya jooga ayaa 3 qayb iyo 15 dibadda intaas ayaa isla gura dugsiyada sare waa imise ee qabdahare ku yaala hadda qabdahare waxa ku yaala hal dugsi sare oo la yiraahdo dugsiga sare ee qabdahare oo graaska 9 ilaa 12 ka ah ardada dhigatana waa imisa ardada hadda xaalkeeda wadarta iskoolka waxa weeye 1300 weeye oo gabdhiyo wiilalba isugu jira ha inta badan Soomaalida waxa lagu yaqaanaa gabdhaha kulama dadaalaan waxbarashada bal ka waran gabdhaha reer Qorraxay sidee wax u bartaan waa saad u asiibtay waa dhibaato meesha ka jirta sanadkii barnaamijka u jirta in gabdhaha la saaro miilad gooni ah oo aan dareemayno gabdhihii in xaqi wiilasha la siinayo marka wax baranayaan waqti helayaan ay helin oo haddii ay soo rabaan shaqadii gurigood ay qayb ka galhayaan waa mid talabaad dhaqankii oo iska gabadha oo aan waxbarashada heer bay ka gaadhay aan ku fikraynin oo aan dareemayno hadda in heerka u sareysa bal nursing iyo wax saas oo kale mooyee wax sii dhaafsadeen ku fikrayn marka barnaamijka iyada in aan wacyigelin gabdhaha ardada ah iyo waalidiinta labadaba inaan kala hadalno waa qayb ka mid ah barnaamijkanaga sida xasan ay ku jirtaa in lagu dhiirigeliyo gabdhaha in la siiyo fursad ay wiilasha kale in ay ku hadiyaan inay waxbarashada ilaa heerka sare ee jaamacadeed ay gaaraan arrintaas u jirta weeye waana mid qorshaha sida xasan ugu jirta inaanu arrinta ka meelgaarno haddii la yidhaahdo inta badan waxyaabaha laga calaacalo marka laga hadlo waxbarashada Soomaalida Itoobiya waxaa ka mid ah macallimiinta oo tira ahaan yar bal ka waran dhibka xagga macallimiinta way jirtaa oo waa run haddana waxaa weeye heerkii marka hore ahayd hadda ma aha oo waa tan aan ku idhi waa xad mooda in hadda laga yani xaggii tiradii iyo xaggii tayadiiba labadiiba shahaadooyinka iyo hosteenba intaba in hadda lasoo maaragtay waxaynayo oo in ay ku jiraan qaar master haysta macallimiinta qabdahare ka dhigta ay ka mid yihiin macallimiinta iskoolada ka dhigta kuwa digriga iyo kuwa diploma inta way isugu jiraan mishaaraad ku filan ma qaataan macallimiintaas mishaaraadkooda waxay la mid yihiin kuwan ay qaataan deegaanka gobolka ka jirta weeye taana de ma aha mid annaga kolley aanu shaqooyinkana ka mid ah marka macallimiinta toos waxaa mishaarka u siiyaa wasaaradda waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida waxbarashada dugsiyeedka hadda ugu dambeeyey iyo annaga wixii ahaa aanu joojinay macallimiintii aanu galbeed keeni jirnay maadaama ay dowladdii ka horgaraysay saan u aragnay oo ay ku filantay inta iyada ah si iyada ahayd baa marka aan u bedelnay dhinacyo kale oo hadda qorshaha nagu jirto oo yani aan kuu sheegi karo masala ka mid yahay dugsiga sare oo laboratoriyada science-ka aan lahayn chemistryga iyo physics iyo biologyga kuwii ayaa loo samaynaya aanu qorshaha noogu jiro shayga u horreeya inaan u samaynaa iskoolka waxaa ka mid a inaanu maktabad loo sameeyo iskoolka waxaa ka mid a in waxbarashada dadka laxalaawayaasha ama dhagahala ama indhahala in iyagana aanu siino ihtimaam oo aanu aasaasno sidii iyaga loogu samayn lahaa barnaamij waxbarasho iyadana qorshaha noogu jiro sanadkan 3 sano soo socota waxaa kaloo qorshaha ka mid a in ardayda agoonta ah ee aan awoodin waxbarashada intii suurtagala ee u daran bal iyagana inaanu maaragtay si loo kafaalo qaadi lahaa anigana aanu nagu jirto qorshaha howlahaas ayaa ka mid ah walahi hadda dhinacan aan u jeedinay wixii annaga barnaamijkanagii deeqdii aan bixinayna aan ku diirinay waxbarashada gobolka kaasi waxa uu ahaa diiriye islaan oo u warramaya cabdirasaq